waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran channelkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimka caanka ah Man ka oo kamid ah aflaamta jaceylka ay uu sameeyay jilaaga caanka Aamir Khan kuwa loogu jecel yahay saaxiibayaal haddaba waxaan eegi doonaa xog iyo xaqiiqooyin laga diiwaangeliyay filimkani Man balse intaan u gudagalin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa channelka soo biirto subscribe saarto haddii uu muuqaalku cajab geliyana hadhow waa iloobin inaad like saarto wixii ay taabtana commentka noogu reeb soo dhawaada saaxiibayaal filimkani Man waxa uu kamid yahay aflaamta jaceylka ee Aamir Khan uu sameeyay kuwa loogu jecel yahay waxaana kamid yahay aflaamtii dhamaadkii sagaashameeyay aadka loo jeclaa hadda waxaan eegi doonaa filimkani wixii laga xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay sidoo kale xogta ay qortay shabakadda caanka ah Box Office India ka oo kamid ah shabakadaha ugu afka dheer ee Hindiya ka soo bax kuwada aflaamta record gareeya natiijo ahaan ama xogaha ku saabsan aflaamta saaxiibayaal filimkani Man waxa hogaamiyalka wada Aamir Khan Anil Kapoor Manish Karol Sharmila Thakur sidoo kale waxa filimkani ka soo muuqday ninka lagu magacaabo Dilip Tahlil Shama Sikandar Neeraj Vori Ananda Mahadevan ninka loogu magacaabo Mustafa ninka loogu magacaabo sidoo kale Baresh Kanadra ninka loogu yeeray saaxiibayaal markaan eegno filimkani waxaa tiyaatarada Hindiya la saaray 9 July sanadii 1999 markaan eegno tirada la siiyay ama shaashadaha laga daawadan waxa lagu sheegaa ama tiyaatarada laga daawaday 260 tiyaatar filimkan waxa uu director-ka ama agaasime ninka lagu magacaabo Inter Kumar waxa soo saaray isla Inter Kumar sidoo kale Ashok Takaria ninka loogu yeeray saaxiibayaal markaan eegno filimkani waxa muusigeeda u garaacay Sanjeevi sidoo kale Darshan heesaha filimkani waxa la xameeyay ereyadana qoray ninka lagu magacaabo Sameer filimkan markaan eegno lacagaha lagu qarash gareeyay waxa lagu qarash gareeyay 14 karoor waa ku dhawaad 2 milyan oo dollarka Mareykanka waxa uu soo xareeyay adduun lacageed gaaraya 16.65 karoor saaxiibayaal markaan eegno filimkani natiijada waxa uu noqday film average ah ama guul hoose gaara ama guul uu guuleystay laakiin guushiisu waxay ahayd guul aad u hooseysa saaxiibayaal markaan eegno filimkan waa filimkii toddobaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay sanadii 1999 shabakadda caanka ah MDB rating markaan eegno codeyntii laga qaaday waxa filimkan la siiyay 10.6 ayaa codeyntiisu dadjoogu codeeyeen sheekadiisa markaan eegno filimkani xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay ilaa dhowr xaqiiqo ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal filimkani xaqiiqada ugu horeysa filimkan waa filimkii ugu horeeyay Aamir Khan iyo Anil Kapoor iskala soo muuqdaan si walba ha ahaatee Anil Kapoor filimkan waxa uu ku lahaa muuqaal xoogaa la yara fidiyo ama muuqaal martiya inkastoo muuqaalku ahaa mid xoogaa la yara fidiyo xoogaa uu ku jiray filimka saaxiibayaal marka la leeyahay filimka muuqaal la fidiyay waxa weeyaan ugu yaraan 15 daqiiqo wixii ka badan qof ka soo muuqdo waxa la leeyahay muuqaalkaasi muuqaal yara la fidiyay ayaa la yiraahdaa saaxiibayaal xaqiiqada labaad ee aan ka eegi doono filimkan waxa weeyaan waxa la leeyahay marka hore filimkan waxa loo bandhigay ama aandhe booska Manish Karol marka hore waxa loo bandhigay gabadh lagu magacaabo Tabu laakiin nasiib xumo gabadha Tabu waxay 3 inji ka dheeraatay ama ay ka dheertahay Aamir Khan sida darteed waxa la yiri ama la sheegay inaysan ku habooneen booskaasi sida darteed Manish Karol ayaa booskaasi loo dhiibay ama iyada ayaa tirjid laga dhigay saaxiibayaal xaqiiqada saddexaad filimkan ka eegi doono waxa weeyaan saaxiibayaal waxa la leeyahay filimkani ka hor Aamir Khan intuu filimkan uusan hogaamiye looga dhigin ama inta asiga loo bandhigin waxa marka hore la rabay in loo dhiibo Akshay Kumar laakiin sidoo kale Akshay Kumar asigana uu iska diiday sababtoo laakiin lama shaacin xaqiiqada afraad filimkan waxa muuqaal marti ah ku lahayd ama ka soo muuqatay gabadha lagu magacaabo Rani Muqraji waxayna kaga soo muuqatay heesta caanka ah Kalina Kiki ama aan dhahay heesta Kalina Kinge Jesse Zulvemi heesta bilaaga ma wafdiyuga fiirsada filimka uu yaqaanane heestaas ayay ka soo muuqatay muuqaal marti ayayna ku leedahay gabadha lagu magacaabo Rani Muqraji xaqiiqada shanaad ee ugu dambeysay filimkan in kala wadaagi doono waxa weeyaan saaxiibayaal sheekada filimkan baasal ahaan waxa laga soo minguriyay filimka Hollywood-ka ah ka oo lagu magacaabo An Average to Remember filimkaas waxa ay Hollywood ku sameeyeen sanadii 1957 waana mid kamid ah aflaamta jaceylka marka la eego ee Hollywood ka sameeyeen sanadii 1957 saaxiibayaal filimkani Man waxa uu kamid yahay aflaamta jaceylka ee Aamir Khan uu sameeyay kuwa loogu jecel yahay ama dhamaadkii sagaashameeyay aflaamtii uu sameeyay midkii loogu jeclaa ayuu kamid yahay filimkani Man filimkani markaan eegno sagaashameeyadii dadyoga Soomaalidu qaar waxay aaminsanaayeen in uu guul dareystay maadaama Aamir Khan gabadhii la rabay inuu gadaal mariyo kulaha hore ay soo marsay saas darteed waa uu ka guul dareystay waa sheeko Soomaaliyeedka ee beenta ay Soomaalidu qaar ay sheegaan balse filimkani waa uu guuleystay saaxiibayaal sidoo kale filimkan waxa uu kamid yahay aflaamta lagu turjumay Studio Alfagi waxaana xusid mudan in filimkan uu ku jiro oraah ama geeraar ee Soomaalidu aad u yaqaanaan kaasoo ay Soomaalidu u maleeyaan in filimkani Aamir Khan uu geeraarkaasi si sax yani asiga uu dhahay
kuwa Soomaalidu ama alfagina ay tarjumeen ama si sax u tarjumeen laakiin waa been maslax ayaa iska leh ama tarjumaga caanka maslax ayaa oraahdaasi iska lahaa halka Fuad uu tarjumayay ninka Amir Khan laakiin oraahda oo sax ah af Indi waxay noqonaysaa quruxda gabadha ayuu amaanaya kadibna waxa uu leeyahay quruxdaada markaan amaano ama qofku markuu ku arko quruxdaada darteed wuxuu kugu tilmaamaya Taj Mahal sida ayuu Amir Khan yiri laakiin Soomaalidu oraah kale ayay dhahaan saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinka kala wadaagayna filimka caanka Iman fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar haddii aad janaalka cusubtana subscribe inoo saar wixii aad qabtana commentiga hoose noogu reeb siina share gareeyo la wadaag asxaabtaada oo ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena